waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Galmudug waxaan maanta dana wakiilka ahay gudoomiye jaaliyadda Galmudug oo ku maqan Soomaaliya ugu maqan shaqo assessment inuu soo sameeyo si ogaado xaaladaha abaaraha dhulka Galmudug sida ay yihiin annaguna halkan maanta waxaan u fadhinaa sida aan guddigii abaaraha aanu magacaabi lahayn wuxuu qaban lahaa jaaliyadda Galmudug aan isugu nimid waxaa shirkan soo aabulay gabdhaha jaaliyadda Galmudug dhamaantood waan u mahad celinayaa waxaa loo yeeray aqoonyaankii waxgaradkii dhalinyaradii Galmudug oo wada jooga aadan ugu faraxsanahay arrintan qabanqaabada guddiga haweenku ay soo sameeyeen waa ku faraxsanahay iyagana waa uga mahad celinaa oo markii labaad dadka isugu yeeray gabdhaha shaqo badan ay noo hayaan waana ku mahadsan yihiin raggan waxaan ka rabnaa odayaasha dhalinyarada aqoonyaanka dhamaantood inay loo wada istaago abaaraha ka jira Galmudug si guud si gaar ahaaneed qof kasta oo wax ka qaban kara maanta waa maalin ay dadkeenu ay biyeelaayihiin ilaa bisha abriil soo sanadkana aan rabdi aan loo maleynay in rabdo kulli sidii looga bartay markii la dhaafo January March 24 kadib waa xilli uu roobka la sugaa oo la maleynayo dhulkeenu waa mid baraago ku salaysan waa jeclaalahay inay u kacaan ganacsatada reer Galmudug ee ku Soomaaliya ugu dhaqaalaha badan inay ceelal qodaan oo ay ku dadaalaan in dhaqaalahooda isla dadka uga faa'iideeyaan iyagoo sadaqo u ah mar walba waxaan kale oo aan halkaan hambalyo uga dirayaa gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliyeed mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiye ku-xigeenka Cabshir Buqaari hambalyo guud iyo mid gaar ahaaneed buu u diraa baarlamaanka aqalka Soomaaliyeed waana u mahad celinayaa dhamaantood anoo ku hadlaya magaca jaaliyadda Galmudug waxaan leeyahay guuleysta gudoomiye ku-xigeen iyo gudoomiye ku-xigeenka kale ee labaad aadan idinku mahad celinaa dhammaan jaaliyadda Galmudug ay idin hambalyeynaysaa USA Mareykanka gaar ahaan Minnesota